Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadil barnaamijkeeni taariikhda iyo suugaanta ee daba qabad. Waxaanaynu kusoo qaadan doonaa wax ka mid ah gabayada iyo taariikhda abwaanka weyne caanka Abwaan Faarax Aadan Jaamac Lanjeer. Waxa uu ku dhashay sanadii 1910 agagaarka magaalada Burco. Waxa uu ku barbaaray nolosha baadiyaha sida ay Soomaalidu waagaa u badnayd, balse waxa uu mar noqday badmaax maraakiibta ka shaqeeya, sida uu ku cadeeyay qaar ka mid ah gabayadiisii. Abwaan Faarax Aadan Jaamac Lanjeer waxa uu hal abuuradii qarnigii tegay kuwoodii foolaadka ah, iyadoo lagu tirsho ragga gabayadoodu caan baxeen goodiga iyo gubaabada. Geelqaad buu ahaa aan habeen u qadin cidda geela, jacaylka uu geela u qabo awgiina waxa uu sheegay inuu geelu yahay shayga qura ee xadistiisu xalaasha tahay, sidoo kale aan tuug ama tuugo lagu magacaabi karin ciddii geela dhacdo, ayna tahay xoog iyo xeelad midkoodii suuragalaba in lagu soo xerogeliyo. Waxa kale oo uu sheegay abwaanku inuu geelu yahay shayga keliya ee Soomaalida amaba dadka ka dhexeeya, xadistiisuna aanay noqonaynin tuugo, sidoo kale ay tahay qofka geela xada ama colka geel qaada in lagu ammaano. Waxa uu sheegay inay tahay faan lagu faano geela dhicitaankiisa, waxaanu sheegay marar ka mid ah gabayadiisa inuu ku faanayo inuu geel dhacay, sida aynu ka arki karno gabayadiisa qaar ka mid ah. Sida la sheego, mar lagu xiray jeelasha ka mid ah jeelasha magaalooyinka iyadoo lagu soo eedeeyay inuu geel xaday, waxaana la sheegaa ama ay taariikhdu sheegaysaa in lagu xiray niman soo xaday ari iyo alaabo dumar laga soo xaday. Waxaanu gabayada abwaanku uu ku sheegay sida gabayga ka muuqataba, haddaynu kasoo qaadno meerisyo ka mid ah gabayadiisa, waxa uu yidhi: uurayda geela iyo dabkan aan faqaadaya ma ogoli inaad ugu xidhaan isxamaalada. Waa uu sheegay rag geel dhacay, rag soo xaday ari iyo wixii lamid ah. Lanjeer waxa uu ka mid ahaa qaadista geela ama Lanjeer waxa uu kala mid ahaa uu kala sinaa qaadista geela Soomaalida waqtigiisa noolad iyo ka horba, oo dhammaan aaminsaneen in geela qaadistiisu ceeb aanay ahayn, balse waxa uu dheeraa inuu gabayo ku sheegay inuu geelu yahay xoolo maalinba ninkii xoog bataa maalo, oo dad iyo dugaagba weerar lagu yahay. Waxaanu ka mid ahaa 3 nin oo xalaaleeyay qaadista geela, waxaanay kala ahaayeen 3 nin Abwaan Faarax Aadan Jaamac Lanjeer oo iminka aynu ka sheekeyno, Cabdi Gaxayr iyo ninkii la oran jiray Cali Aadan Goroyo Cali Dhuux. Waxaana jira gabay dheer oo uu kaga hadlay geela in qaadistiisu xalaal tahay ama aan loo soo gaban karin, meeshii laga soo gaadho geela la xadi karo, lana dhici karo, xeelad iyo xoogtii loo helana lagu dhici karo. waxaana gabayga ka mid ah haddaynu meerisa ka soo qaadano: sayidkii xareed iyo fadhiya xarun daraawiishta, xaafid al-qur'aan buu ahaa soo xajiyey dhowre, isagaba xaq iyo baadil waa u kala xariiqnaaye, xaaraan hadduu yahay fardaha kuma xabaadhin. Isagoo ka hadlaya geela, waxaan Abwaan Faarax Aadan Jaamac Lanjeer waxa uu ahaa farshaxan adeegsada ama farshaxan in badan adeegsada gabayga kiisa quruxda badan, sida laga dheehan karo gabayadiisa. Waxa uu ku caan baxay ama gabayadiisu caan ku noqdeen meerisyo halqabsi noqday oo fara badan. Meerisyadaas oo aynu tusaale haddaynu qaar ka soo qaadano ay ka mid tahay meeriska caanka ah ee nin kastoo, qof kasta oo ama shakhsi kasta oo maqlaa Faarax Lanjeer uu halhaleyn u xasuusanayay dadkiina iminka aad u yaqaanaan. Ereygaas ama meeriskaas oo ah rag cadaalad wada sidii cawsha kaliya. Gabaygana wuxuu ku jiray ama meeriskan waxa uu ku jiray mid ka mid ah gabayadiisa ugu caansan gabayada Faarax Lanjeer. Sidoo kale waxyaabaha ama gabayada meerisyada caanka ah ee halqabsiga noqday waxaa ka mid ah: labin samada taal buu fariid la qani qaataa, beydkaana isaga lugtu faraska laba loontiya landoroofaha. waa mid ka mid ah gabayada ama meerisyada halqabsiga noqday. yaa iloodinka soorada leexa qarin mayso, iyaduna waa mid ka mid ah. meerisyada dhammaantood waa gabayo kala duwan balse kala lumay oo aan iminka wax laga hayn. Dhammaan waxaa ku codsanaa cidiina maqlaysa ama codkayga uu soo gaadho inay nala soo xiriiraan hadday gabayada wax ka hayaan, ama ciddii gabayada wax ka haysa inay nala soo xiriiraan, maadaama uu gabaygu yahay waxyaabaha qura ee afka Soomaaliga lagu ilaalin karo ama lagu dhowri karo luqadda.
oo ay waajib tahayna in la ururiyo lana qoro. ciddii haysta waxaan ka codsanaynaa inay nala soo xiriirno. anigu waxaan ismaan cabdiraxmaan aadan halkan waa Samaka Media.